غير ودين سلام ما يسلم كده waxaan u rabnaa inaynu dul istaagno xilka la siiyay Mukhtaar Rogo markaynu dib ugu laabano 5 sano la soo dhaafay xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa xubnaha ugu sareeyay kamid ahaa Zakariya oo kamid ahaa al-Shabaab Zakariya waxa madaxiisa dul saarnaa 3 milyan oo dollar Zakariya ayaana qaraxyo kala gooniye ka geystay magaalada Muqdisho Bambaasa iyo Nairobi waxaana mar laga weydiiyay su'aal ku salaysan arintaas wariyaha ayaana weydiiyay oo BBC ka socdo waxaana ahayd maxaad ka leedahay dadka allaysay waalidiintoodii wuxuu ku jawaabay kaliya inuu ka xun yahay wax dhacay Mukhtaar Rogo waxa ka horeeyay Axmed Madoobe waxa ka horeeyay Xasan Daraawi soo xiran su'aal muhiim ah marka haddii qofku xun lagu abaalmarinayo in xil la siiyo qofka wanaagsan ma dhiirigelin u noqonayso inuu xumaado suu xil helo waana arinta u baahan fahan iyo tafsiirin iyo macnayn badan siyaasad ahaan waa macquul in lagu kala duwan yahay balse aragtida ayaa waxay tahay qofkani markii xilka la siinayo xaguu bulshada ku raaligeliyay tusaale Zakariya ayaa wuxuu ka mid ah xukuumadda hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamana hayo isagoo meel public soo istaagay sheegayna in uu bulshada raaligelin ka dalbaday ama bulshadii uu xasuuqay waalidiintoodii wali nool yihiin ama dadkii ka noolaa qaraabada ahaayeen isagoo uu raaligelinay halka Axmed Madoobe sida dhanka kale Xasan Daraawi wali waa xiran yahay ka soo maxbuus hadiiba dadka noocaas oo kala ah la siinaya xilalka ugu sareeya dawladda waxay dadku ka doorbidayaan inay si wanaagsan u raadiyaan inay xumaanta u soo maraan wali waxaan ku dhex jirnaa aragtida dadweynaha su'aal kale oo muhiim ayaa imaanayso oo ka socota dhanka kale waxayna tahay haddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cafis u fidiyay Mukhtaar Rogo hase ahaatee uu ka soo horjeeday inuu xil qabto xabsina la geliyay maxaa xilligan u diiday in uu xukuumadda hadda joogto xil ka qabto waxaana laga yaabaa dhan kale inay su'aal ka qabaan oo ay leeyihiin waxa xilka loo siiyay ku xumeyn lagu xumeynay koonfur galbeed waxa ka sii muhiimsan waxay tahay aragtida siyaasadeed ee bulshadu iyo siyaasiyiintu leeyihiin ma aragtida siyaasiyiinta ayaa gaaban oo midda argagixisada ayaa dheer haddii argagixisadii dhammaantood ama badankooda xilalka noocan ay qabtaan kuwa dambe miyay dhiirigelin u tahay soo socda mise waxay caqabad ku noqon doontaa kuwa hadda jooga shantay waa shaxaari weyno shaatiga shiiqnimo ayuu xirtay bootada beena u dheere xil u dhiiba ciyaal weeraha dile shantay waa shaxaari weyno shaatiga shiiqnimo ayuu xirtay bootada beena u dheere xil u dhiiba ciyaal weeraha dile shantay waa shaxaari weyno shaatiga shiiqnimo ayuu xirtay bootada beena u dheere xil u dhiiba ciyaal weeraha dile aragtidaada hoos noogu soo dhiib barnaamij midkan lamid intaanu kulmi doono sidaa nabadgelyo bootada beena u dheere xil u dhiiba ciyaal weeraha dile